sida ay ogaatay hay'adda kubadda cagta adduunka maamusha ee FIFA in ka badan 38 bilyan oo pound ayaa lagu qarash gareeyay suuqa kala iibsiga ciyaaryahanada kubadda cagta 10 sano ee ugu dambeysay. Lacagaha lagu qarash gareeyay suuqa kala wareegga ciyaartoyda 10 sano la soo dhaafay ayaa ah kooxaha ugu badan England inay yihiin kuwa hormuudka u ah liiska qarashaadka waaweyn dhammaan kooxaha Yurub ka dhisan. Waxay sidoo kale FIFA baaritaan ballaaran ay ku sameysay wareejinimo dhacay intii u dhaxaysay 2011 ilaa 2020. Manchester City, Chelsea ayaa hoggaan ku qabtay kooxaha ugu badan ee lacagta bixiyay 12 ka mid ah naadiyada Premier League oo sidoo kale ka soo muuqdeen liiska 30 ugu sareeya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda lacagaha ugu badan lagu iibsaday. Southampton ayaa ku jirta kaalinta 22aad guud ahaan ayaa qarash gareysay in ka badan lacagaha suuqa ay gelisay kooxda Borussia Dortmund sida ay warinayso warbixinta. FIFA ayaa soo saartay nidaamkan October 2010 sano la soo dhaafay waxaa jira kala iibsiyo aad u badan oo ay ku lug lahaayeen ciyaartoyda reer Brazil waxaana lagu bixiyay lacag dhan 5.14 bilyan marka loo eego ciyaartoyda kale ee ka yimid dalalka kale. Neymar ayaa ah wali ciyaaryahanka lagu iibsaday lacagaha ugu badan oo ah 200 milyan lacag ka badan sida warbixinta lagu sheegay. Waxaa jira 14 heshiis oo dhacay 2020 oo in ka badan 100 milyan ah iyadoo weeraryahanka reer Argentina Angel Di Maria uu yahay ciyaaryahanka kaliya ee ku lug lahaa laba ka mid ah saxiixadaas. Saxiix cusub ee Chelsea Romelu Lukaku ayaa lagu iibsaday lacag rikoor oo dhan 97.5 milyan oo geni 12 Agosto laakiin kuma biiri doono liiska Di Maria. Guud ahaan qarashka saafiga ah ee naadiyada Ingiriiska oo ah 7.23 bilyan oo pound ayaa aad ugu sareeya dhammaan kooxaha kale ee adduunka. dalka Janaha ayaa ku xigo 1.46 bilyan. Lacagaha ciyaartoyda wakiiladooda ay qaataan ayaa iminka gaaray 3.5 bilyan waana in ka badan lacagaha ay qarash gareysay City. Qiimaha faa'iidada ee heshiiska ayaa ah tirada ugu badan ee kooxuhu ay hadda isticmaaleen marka loo eego 2020 waa in ka badan 13% 17,185 saxiixyo ayaa ah kuwa si joogto ah u dhacay waxayna yihiin kuwa ugu badan ee lacagaha laga sameeyay. Haddaba liiskan oo ka koobnaa 98 bog oo FIFA soo saartay ayaa waxa ay ku faahfaahisay sida heshiisyada ugu waaweyn ee u dhaceen. wadar ahaan 3.5 bilyan ayaa la siiyay wakiilada ciyaartoyda 10 sano 2020 muddadaas oo ay ka qayb galeen muddadaas oo ah xilliga ka fog lacagaha ay ciyaartoydu wakiilada ay helaan. waxaan halkaas ka jiray korukac xogan oo ay wakiilada ciyaartoydu ay sameeyeen. Manchester City ayaa ahayd kooxda lacagaha ugu badan bixisay intii u dhaxaysay 2020 waxaana ku xigtay Chelsea, Barcelona, PSG iyo Real Madrid. 12 ka mid ah 30 naadi ee ugu lacagta badan 10 sano la soo dhaafay waxay ahaayeen kooxo ka dhisan England waxaana ka mid ah 6 kooxood ee ugu waaweyn. waxaa ku soo baxay liiskan Leicester City, Southampton, Wolves, Everton, West Ham iyo Newcastle. Benfica ayaa heshay lacagaha ugu badan ee suuqa kala iibsiga waxaa ku xigay Sport Lisbon, Barcelona, Chelsea, Athletic Madrid. Manchester City waxay isticmaashay 232 ciyaartoy kuwa yimid kuwa ka tagay iyo kuwa heshiisyo ay la gaartay oo ayagoo aan kooxda ku soo biirin si iibisay. Chelsea waa 207 ciyaartoy waxaa ku xigta kooxda Swansea City oo 146 ah waana kooxda shanaad. naadiyada Ingiriiska waxay ku qarash gareeyeen laba jibaar suuqa kala wareegga ciyaartoyda 12.4 bilyan. lacagta soo xirigelinta ciyaartoyda marka la barbardhigo xiriirada kale ee Spain oo qarash gareeyay 6.7 bilyan. Wales waa 600 milyan. Argentina 19, Scotland 25. saxiixda ugu caansan ee suuqa kala wareegga ciyaartoyda 10 sano ee ugu dambeysay Brazil ilaa Portugal ayaa jira oo ay dhaceen 1556 heshiis ayaa dhacay. waxaa ku xigay England. naadiyada Boortaqiiska ayaa macaashka ugu badan ka helay ganacsiga ciyaartoyda waxa dhaqaalaha ay heleen uu marayaa 2.956 bilyan. naadiyada Ingiriiska ayaa qarashka ugu badan iminka miiska u soo saaray ugu dambeyn wuxuuna marayaa 7.3 bilyan. Shiinaha 1.46 bilyan. Sacuudi Carabiya ayaa ku jira liiska kaas oo qarash gareeyay 481.2 milyan halka Qatar ay ku jirto kaalin 9aad 278.4 milyan. kooxda yar ee Wrexham ayaa ku jirta kaalinta 7aad liiska naadiyada dhameystiray heshiisyada ugu badan qandaraasyada dhacay waxaana ay kooxdu ay sameysay 103 ciyaartoy waxaana liisku sidoo kale ku soo baxay kooxaha ka dhisan Singapore, Armenia, Qobrus iyo Malta.